Asalaamu calaykum qaraabo. Ma ku fikirteen markaad suuqyadan ku jirto sidaa markaad ku jirteen tripka ama stock marketka goormuu suuqan bullish yahay iyo goormuu suuqan bearish yahay? Videogan insha Allah waxaan ku fiirin doonaa waxaan isticmaala saa ku garto inuu suuqa markuu bearish yahay markuu bullish yahay. Waxaa jira nin xisaabiye ahaa oo u dhashay wadanka Mareykanka oo magaciisa la yiraahdo Ralph Nelson Elliot oo calculation ku sameeyey siduu u dhaqmo suuqa. Wuxuu ogaaday marka inuu suuqan u dhaqmin si fawda ah balse uu leeyahay pattern mar walbo soo noqnoqdo especially in high time frame. Wuxuu ogaaday in suuqa uu socdo nidaam soo noqnoqdo oo loo yaqaan fractals. Waxa uu aaminsan yahay uu aaminsanaa in dhaqdhaqaaqa qiimihiisa ama qiimuhu uu dhasho cilmi nafsiga ama mass psychology. Cilmi nafsiga fakirka dadweynaha leeyihiin oo suuqan weydiiskaya. Marka dadku rajo qabaan waa dad rajo qabaan ama qiimaha inuu mar walba kor u kaco balse baqdina ku jirta inuu marka mar walba suuqa dhaco uu panic. Laba wave buu u kala qaybiyey laba phase buu u kala qaybiyey. Waveka koowaad wuxuu bixiyey ama waxaa la yidhahdaa impulsive phase. Wuxuu ka tirsan yahay 5 wave. Shan wave buu ka tirsan yahay. Kan labaadna waxa weeyaan corrective phase ama suuqa markuu bearish yahay. Asagana waa 3 wave. So impulsive phase oo ah bull market 5 wave buu ka tirsan yahay. Corrective phase oo ah bear market 3 wave buu ka tirsan yahay. Shanta wave waxaa la yidhahdaa 1 2 3 4 5 barkadaya. Corrective phase-kana wuxuu leeyahay 3 wave oo la yiraahdo ABC. Mararka qaarkood 5 wave buu sameeyaa ABCDE buu sameeyaa. Mararka qaarkood wuxuu sameeyaa ABC kaliya. Balse ABC buu u badan yahay. Hal mar marka aynu ku tuso suuqa waxaan ka hadlayo all of it. Aan bilaabno suuqa inaan xisaabno. So waxaa dhacaya inuu niri markuu bullish yahay suuqa 5 ways. So 1 2 3 oo badanaa ka dheer. Waa 1 2 3 4 5 oo isagana u samaysmi karaa waa kana ABCDE oo intuu kan sameyn lahaa wuxuu sameynayaa 1 2 3 4 5 ABCDE. From here listener. Let me kan waa ABC oo laba kale lagu daray. Labadaas calaamad bear market u badan yahay laakiin ABC kaliya. Isagana waa arki doonaa. Hal suuq marka aan fiirino waxa weeyaan 2022 bearish market baa dhacay. Suuqa waxa weeye jahada bedesho. Wave-ka ugu horeeya waa wave corrective. So marka hadafka wave-kaas uu leeyahay waa inuu jibiyo the last high oo dhacay. So marka waxa weeyaan suuqa dusaan hoos ugu soo socday hadafka waxa weeyaan inuu jibiyo high-gaas. So marka waa badanaa corrective weeyaan suuq ahaan laakiin hadafka markuu kaas jibiyo macnaheedu waxa weeye suuqaneeto waxaa dhacay impulsive-ka ugu horeeya. Impulsive-kan waxaa badanaa sameeyo institutional investors amase waxa la yidhahdaa smart money dadka suuqan qaajiya. Wave-ka labaad badanaa waa order block-yada ugu dambeeya inuu soo xiro. Order block-yana waa aniga waxaan u isticmaalaa taaq ahaan. So all this is one order block to me. Ka kala yareyn. Waxaa dhan to me waa order block. Dhaqaaqan waa order block. Dhaqaaqan waa order block. Dhaqaaqan waa order block. That's why loo sugayo inuu kan jibiyo waa order block ugu dambeeya. So order block-ganeeto waa soo xigay. Block-shigan hadaf kale ma laha in order block-yadan inta ku dhex jiro oo halka xab isku ah inuu soo xiro. So order block ugu dambeeya waa kana markuu suuq waxa waaye markuu soo dagayo inuu order block soo xiro. Very simple. Mararka soo xiro iska dhaqaaqa. So their money, their money, their decision.
marka waxaa dhacaya wavekii labaad waveka labaad maxaynu niri inuu badanaa oo bloggii soo xirtay ayaa loogu talagalay so inta waxa weeyaan markaan waxaan maraynaa wavekii koowaad wavekii labaad ayaan waveka saddexaad baa dhacaya waveka saddexaad badanaa wuxuu leeyahay correction ku qaldaya okay correctionkan ku qaldaya aad buu dhaca maadaama uu yahay impulsive uusan corrective ahayn hal maroo correction yar dhacaya waxaa isleeyahay suuqa hoos buu soo aaday ani waxyaalaha ku garta suuqa markuu waveka labaad ama afraad dhacaya waxa weeyaan badanaa waxaan sugaa inuu 7% ilaa iyo 10% u hoos aado waa 5% 6% ka yar kan haddaa xisaabno 9% so kan ayaa marka kan wuu ku qaldi karaa isokay haddaa ku qaldanta dhib ma lahan don't be harsh on yourself so suuqa marka waxaa dhacay dhaqaaqii saddexaad waa dhaqaaqa marka maxaa lagu yaqaanaa saddexaad waxaa lagu yaqaanaa wuxuu leeyahay shuruudo u gooni ah oo kamid ah for example hirkan wuxuu dhaliyaa mass psychologiga oo dadka fakarkooda ama nafsi waa wix loo yaqaana uu ku sameeya waxa weeyaan in ay noqdaan maxaa la dhahaa trendka buy u yahay qofka fikrada waa fahamsan yahay inuu suuq buy inta waxa waaye xoogaa shaki baa jiray waveka koowaad bare waa corrective ka shaki baa jiro xoogaa waa corrective laakiin wavekan waa waveka ugu dheer waa waveka bullish ah badana badan kandalada dhaadhe oo cagaarka ku badan waxa uu kaloo leeyahay wuxuu dhaliyaa xataa hunguri buu dhaliyaa amase zaid oo ah waxay hilmaamaya inuu sel aad ayay hilmaamaya so marka ganacsatada ama dadka investorada badanaa suuqa qaybtan soo gala waa dadka next experience-ka amase smart moneyga fahamsaneen institutionada way dadka fahamsaneen weyaan again markaa stock market ku jirtid iyo kriptadaba stop loss dhaha ma jiro adiga waaye losskaaga oo samaysan kartaa slops laakiin lacag khasaare joogta aad iska gelinaysid weyaan so suuqa kii soo noqda baa soo dhalaa okay suuqa marka waxa weeyaan baa maxaa kaloo marka dhacayo waxa dhacayo wavekii afraad wavekan afraad kan wuxuu uga duwan yahay waa more deep waa dhowr kandalo gudubas mara uu ka gaaban yahay waqti ahaan kan markii okay wavekanito afraad ma soo geli karo intuu soo dhaco uu hoostiisa ku jiro ma soo geli karo wavekii koowaad meeshu ku dhamaado waa shuruud u taal weyaan shuruudaha waa la jebin karaa laakiin waa shuruud u taal wavekaas ma aha inuu wavekan koowaad soo dhex galo ma aha so waa shuruudaas u taalo waxaa dhacaya markii uu tan dhaco weli dadka waxay aaminsan yihiin suuqa inuu baa yahay waa liquidkii baa jiro adeeb sheekada ku tahlaabo okay waxaa jira ilaa ku ron yahay wax isbedel ama dhacay weli dadkii buy bay u haystaan buy weli waxaa dhacaya marka waveka shanaad wavekan badanaa inaan daaramina ka kala xirta waa waveka ah jeclahay inaan ku dahdaahin hadaan rabo inaan profit kala baxo hadaan inaan ku hayo waayo waa wave very corrective ah iyo oo liquidity baa lagu dhisaa stabilise baa lagu cunaa marka waxaa fiican profitkaaga waxaa inaad kala baxay lacagta aad ku heynaysid aad ku daysid oo ogtahay bermarket inaad ku heynaysid okay marka taas dhacdo oo wavekii saddexaad uu dhaco waa wave ka gaaban kan ugu gaaban waa badana marka qaarkood kana ka gaaban karo waa corrective isaga naftigiisa waana liquidity miran correctivekiisa kan correctivekiisa waa buy sell kan laakiin waa liquidity marka qaarkood kandala yaryaro oo isdaba yaalo ayuu sameeyaa wuu ka dheeraan karaa taasna way dhacdaa soo la soco so waxaa dhammaaday wavekii buyga kadibna waxaa dhacay wavekii salka ah oo abc-ga ahaa hadda waa dhameen marka suuq waxa weeya cycle dhan baa haysataa waa kan waa beerishkii ugu dambeeyey oo qaybtaanaydo okay it's very difficult inaad screenka ku haysid waayo bullishkan aad buu dheeryahay maxaa dhacay marka wave 1 wave 2 wave 3 wave 4 wave 5
marka maxaa ujeedaa waa real like structure wulu jira we do the same thing maxaa dhacay marka waxaa dhacay psyche beer marketkii b c halkan c baan dhihi karnaa hadii kale waxaan dhihi karnaa xataa e d f laakiin a b c haddana kana waa xisaabeena isagan wave 1 wave 2 wave 3 wave 4 wave 5 saa ujeedid so correctionkana ku jira correctionkii aan kii kale kugu tusaa ku qaldi karo xisaabtid oo kan nooco still the same thing bas hada anyway inta suuqa maaha inaa uga baxdo suuqa waxa weeyaan businesskan correctionkan marku bilaawdo inaad maxaa kala xixirtid laakiin saa ujeedid weli imbalse weeyaan so waa shantii wave waa dhacay haddana sel buu galay selkii muxuu sameeyey weeyaan selkii wuxuu sameeyey c waxaa kaloo dhici karta inuu sameeyo d waa isu weli ma dhamaan okay waxaan kaloo rabaa inaan tuso marka time frame sidana waa muhiim ah noqona sp 500ka silka qurux badan now that this sp 500ka maxaa ugu sawiran sugaa qaldane okay haddaa fiirisid marka haddaa fiirisid marka impulsiveka badanaa impulsive wavekaneeto wuxuu socdaa adiga ama 3 sano wuxuu socon karaa 2 sano iyo 10 bilood wuxuu socon karaa 3 sano iyo bar adiga around 3 years okay close to 3 years bear marketkana badanaa wuxuu socdaa from 7 months to a year okay marka aan xisaabno isagana anagoo isticmaalayna the same thing waqtiga aan xisaabno marka maxaynu leedahay from here to here waxa weeyaan around 3 years so isugu jeeda 8 bilood iyo 9 boqol xoogaa so waa 2 sano iyo 9 bilood okay okay marka kan fiirisid waveki weeyaan kan oo bear marketkana waxa weeyaan isagana from here to here around 3 months this bearish was quick like caadiyan waa longer than that hadda kan waa kii 2022gii waxaa ku qaadatay close to 1 year soo ma jeeda isagana saas 9 bilood ku qaadatay inuu hoos kaco haddaan same concept u isticmaalno oo asagana aan sameyno wayfada dhan xisaabano one kan waxaa dhacay corona so corona wuxuu ahaa biirka waxaa correctionka waveka labaad ayuu ahaa xogaa beer market ayaa dhacay dhamaan wey kadib waxaa dhacay ambaasadka saddexaad ambaasadkii afraad imbo okay waqtiga haddaan xisaabno isagana biomeno kan ugu gaaban waa kan waqti ahaan kana laga yaaba inuu ugu dheeraa maadaamuu corrective yahay kan meel kastoo gududan waqtigiisu leeyahay isbuuc weeyaan kan waxa weeyaan 400 wax la jiro adiga waa 1 sano iyo 2 bilood waxaas ama 6 bilood bear market baa dhacay maykan waxa weeyaan corona soo xisaabi karin waa event suuqaneed haddii dhacaan corona dagaal haddii dhacaan haddii dhaco recession dadna structureka wuu yara waasha okay kanna aan dhahno intuu ka bilaawda ilaa inta 500 oo beri waa 1 sano iyo 4 bilood 5 bilood meelahaas weeyaan kanna asagana waxa weeyaan wax adiga 3-4 bilood amleeya so haddaa marka xisaabteed total isku noqonaya around 3 years marka 3 years buu socday kii salkana wuxuu socday wax 1 sano u so waa the same concept so majeed waa soo noqonaysaa so muhiimad waxa weeye inaad fahamtid oo aad gunaanad ahaan waxa aan kugu dari lahaa aniga of course inaad ku xisaabtantaan sabarkeeda inaad suuqan yeelataan suuqanan waxaa ku jira 7 sano ku dhawaad ka badan actually waxa ani gashay xasilooni aanan lahayn waagii abolos ku jiray waagaas waxaa rabay degdeg inaan la sameeyo quick money balse the reality waxa weeyaan suuqan sabar buu u baahan yahay suuqan wax 100% looma jiro waa percentage wise adiga waxaa ku xisaabtamaysaa 70 80% 90% best case laakiin wax 100% jira u leh
waxaa laga yaabaa 3 sano soo socota inuusan ehelid wife dhan sameynin. Very difficult to think like way dhici karta. So micnaheedu waxaa waaye you cannot istiraatiijiyada isticmaalaysa 100% maaha. waxaa dhicayso 10, 20, 30% oo qalad inaad gashay. Of course haddii 50% ka hooseysid profit ma sameynaysid. Hadaa 50% asaxsan tahay only a little bit of profit waa sameynaysaa, little bit of profit. laakiin hadafka waxa waaye adiga 60, 70, 80% inaad saxsan tahay. So أنا هذا سوق كسوق إنه سيسميه وسكلا سميه فلو even get angry أما مثلها أو وحبك عقلتنا أو استراتيجية وحبك عقلتنا I know سوق أنا تو ما هو بمرة على جد كأني رب that is okay محل هاي مركا برا سيفع برا أنا شاب analysis أنا نوع عليه وايو فكر كما psychology بني آدم أنا بتخصص وحداً أطلعها استراتيجية وسميه أو smart money واستراتيجية تمت فكر أو ماس psychology أما فكر كي بني آدم كأسبوع بدنا راتن بوليه كل جين هدي مال وحن لو جيت كسحاقة سند والبابا باتن بالنا باتن بني آدم كليه وحول بوسميه بس wax kasta waxaa samaysid pattern hadii waa qof walba wax kasta uu quraacdaa waa qof walba qado cunaa waa qof walba casho cunaa waxay u dhacaysaa because that is a pattern right hor dadka ma cuni jirin 3 times waxay cuni jireen maybe once or twice laakiin waxay noqotay 3 times waayo ekonomiyada baa kacday dad weli waxay jirto 2 times marka waa pattern weeyaan so you know qofkan inuu saddex jeer wax cunayo you know qofka subaxda markuu soo kaco inuu soo cuntayo oo soo cabanayo you know waxaas dhan waa pattern bini aadam marka kana waa sidii kale waa pattern mar walba dhacayo weeyaan sidaas ula socda isagana intaas baan kusoo gabagabeynaynaa waa inuu next time wabilaahi tawfiiq